caruurtu waxay wax u bartaan si dabiici ah waan soo sheegay markii hore waxaad arkaysaa caruurtu inay aad iyo aad markay luqaddu baranayaan dhagaysigooda aad u badan yahay wax tiro badan baa dhagahooda ku soo dhaca soo maalintii baa laga yaabaa inay maqlaan boqolaal kumanaan kala duwan oo jumlado iyo fariisyo iyo erayo kala duwan marka dhagaysigaas tirada badan ayadoon wax culaysa ku hayn hadduu maqlo iyo hadduuna maqlin intuba ardaygaasi input baa waxay u yihiin maskaxdiisa marka wuxuu wax ku baranayaa isagoo barashar la'aana marka 1 sano iyo 2 sano iyo 3 sano iyo 4 sano iyo 5 sano markuu jiro sababta uu si fiican uga hadlayo adigu ma aadan barin waalid ahaan marka tahay xataa luqadaas iyada marka cunugu wuxuu wax u qaataa si dareenkiisu una siinayna marka absorptionka markuu sameeyo unconscious way oo ma aha sida qofka weyn oo kale waxa inay ula kac ka noqoto kale caruurtu grammar ma bartaan waad ogtahay laakiin haddana markay hadlayaan grammarkoodu waa sax jumladaha ay dhisayaan